بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها قولها الشعب كبرلمان كفدرال قدومي كحجين كأقل كسرية برلمان كدولة الفدرال مدحوين كحجين كدولة بنتلان كلياش كلا دولة هير فدرالي هير بنتلان قدوميها برلمان كبنتلان مدحوينياشي هوري مدحويني كحجينتي هوري بنتلان saraakiisha ciidanka qalabka sida xubnaha beesha caalamka iyo safaaradaha siyaasiyiinta iyo waxgaradka isimada iyo cuqaasha iyo culimada haweenka dhalinyarada saxaafadda iyo qaybaha bulshada rayidka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan marka hore halka tacsi uga dirayaa gudoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan yariisow oo ku geeriyooday magaalada dooxa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. runtii waa geerin naxdin leh. wuxuu ahaa saaxiib qaali ah, weliba si gaaray uu ahaa ilaa iyo muddo dheer. wuxuu ahaa nin runtii bulshada taqaanay oo dhan ay jeclaayeen, wax badan ka soo qabtay dalka Soomaaliya. waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay naxariistii janno siiyo eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo dhammaanteen nuqsamada iimaan naga siiyo. intaa kadib waxaan jeclahay inaan marka ugu horeysa halkan hambalyo uga diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Puntland, gobol iyo degmo iyo tuulo iyo miyi iyo meel kastoo ay ka joogaan gudaha dalka Puntland iyo sidoo kale daafaha dunida iyo dacaladeeda meel kastoo ay ka joogaan. waxaan ugu hambalyaynayaa sanad guuradan 21aad ee aasaaskii Puntland. waxaan leeyahay farxad ku ciida. waxaad muujiseen dabaaldeg qurxoon, waxaad muujiseen isu soo bax damaashaad dal iyo dibadba ka dhacay. waxaan rajaynayaa inay arrintaasi qayb ka qaadato jiritaanka iyo midnimada Puntland iyo tan Soomaaliyeed oo loo aasaasay. mudanayaal marwooyin, waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta sharafta faraha badan ee aan inii soo jeedinayo mar labaad. waxaa sharaf noo ah dhammaanteen inaynu u dabaaldegno sanad guuradii 21aad ee ka soo wareegatay aasaaskii dowladda Puntland. waxaan looga mahadnaqayaa guulihii iyo waxqabadkii faraha badnaa ee halka caawa looga sheekeeyey ee u horeysay dhismihii hanaankii dowladnimo, adkeyntii amniga iyo taabagelintii horumarka dhaqaalaha, siyaasadda iyo adeega bulshada. waxaan bogaadinayaa isku tashigii reer Puntland, horumarkaas ay ku gaareen. waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay sii wadaan halgankaas si loo gaaro hadafyadii loo aasaasay Puntland oo ay ka mid tahay yegleelidda dowladda dhexe ee federaal ku dhisan, kuna dhisan maamul wanaag iyo sarreynta sharciga. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa aasaasiyaashii Puntland, isimo, siyaasiyiin, waxgarad, haween, dhalinyaro, ganacsato iyo qurbo joogba. intooda nool waxaan u rajaynayaa cimri dheer iyo cibaado suuban. intoodii dhimatayna janno iyo naxariis ayaana loo weydiinayaa. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada 21aad oo runtii howl adag qabtay. dhammaan sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabkii iyo xoogagii ka qayb galay oo isugu jiray ciidankii iyo shaqaalihii kala duwanaa oo ay ka mid ahaayeen fardooleydii u bixiyey Puntland, haweenka 9 gobol, walaalaha Puntland, ardayda, dhalinyarada, shaqaalaha, gaar ahaan caafimaadka, beeraha, kalluumaysiga, shirkadda korontada, dabdamiska, ciidamada taraafikada, asluubta, booliiska, difaaca xeebaha, ciidamada difaaca Puntland qaybahooda kala duwan sida daraawiishta,
iyo daraawiishta qaybteeda cigaaleyda ahayd kumaandooska iyo gaadiidka gaashaaman dowrkii weynaa ay ka qayb qaateen damaashaadkii saaka ka soo bilowday bartamaha magaalada Garowe. waxaan dadweynaha reer Puntland ee ku damaashaadaya gudaha iyo daafaha dunida iyo dhammaan walaalaha meelaha fogfog dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inooga yimid si ay xuskaan inooga qayb galaan. waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo waftiyadii la socday. mudanayaal iyo marweyn, maanta waa maalin weyn. waa maalintii la aasaasay dowladdii u horreysay ee xubin ka noqota dowladda federaalka. waa maalintii la ansixiyey dastuurka ku-meelgaarka ee Soomaaliya looga saaray ku-meelgaarka. waxaan u jeedaa 1 Agoosto waa maalintii u horreysay ee la aasaaso dowlad ku dhisan federaal burburkii 19 kadib. sidoo kale 1 Agoosto waa maalintii la ansixiyey dastuurkii ku-meelgaarka ka saaray Soomaaliya 2012. haddaba waxaan madaxda Soomaaliyeed heerarkooda kala duwan u soo jeedinayaa codsi ah in maalinta 1 Agoosto loo aqoonsado maalinta federaalka, maadaama ay kulansatay labadaas munaasabadood oo taariikhiga ah. way mudan tahay in bogagga taariikhda ee la xuso lagu daro 1 Agoosto. mudanayaal iyo marweyn, haddii aan dib u milicsado geedi socodka dowladnimo ee Puntland, waxaa inoo sawirmaya taariikh horumar iyo taariikh dowladnimo la taaban karo. tusaale ahaan sanadkii 1998 sida aad ku aragteen filimada halka laga sii daayay, waxaa ka jira Puntland 28 iskuul oo lagu kala dhigto dhowr iyo 10 manhaj oo kala duwan. maanta Puntland waxaa ka jira wax ku dhow 1,000 iskuul oo dhammaantood ku shaqeeya hal manhaj oo midaysan. ardayda ka qalinjabisay dugsiyada sare waxa ay u diyaarsan oo ay kala doortaan 13 jaamacadood oo dhammaantood la aasaasay 20kii sano ee la soo dhaafay. waxaa sidoo kale Puntland ku soo kordhay 23 cisbitaal iyo dhowr kun oo xarumood oo caafimaad oo lagu adeego bulshada oo dhan. waxyaalaha la taaban karo oo adeegyadaas ka dhashay waa arrin aad u farax gelinaysa dadka Soomaaliyeed oo dhan. tusaale ahaan waxaa la tallaali jiray dadka reer Puntland 3%. maanta waxaa la tallaalaa 87%, taas oo kordhisay da'yarta soo koraysa caafimaadkooda iyo baraarahooda. waxaan sidoo kaleeto dowladda Puntland nasiib u yeelatay 22 sano ka bacdi inaan hoggaan u qabanno Puntland maanta una gaarsiino Puntland aan dhammaanteen wada hiigsanayn. walaalayaal, waxaan guulahaas aan soo sheegay iyo kuwo kale oo badan ku gaaraynaa wadajir, iskaashi, wada shaqayn dowlad iyo shacab reer Puntland. mudanayaal iyo marweyn, dowladda Puntland ee aan hoggaanka u hayaa waxay leedahay yoolal waaweyn oo ay tahay inay gaarto 4 sano iyo dhowrka bilood ee soo socda haddii aan la idmo. yoolka ugu weyn oo mudnaanta koowaad aan siinayay waa sugidda amniga iyo tayeynta xoog ciidan oo ay leedahay dowladda Puntland, kuna filan sugidda amniga gudaha Puntland oo ay ugu horreyso ciribtirka argagixisada iyo ilaalinta xuduudaha bad iyo bir. waxaa diyaarsan oo tababaradii u dhammaadeen muddadii aan hadda joognay 1500 oo boliis ah. waxaa dhammaystirmay dayactir xeryaha daraawiishta 2 ka mid ah. waxaa iyadana la rajaynayaa 2 kaleeto in dhowaan la bilaabi doono dhismahooda, iyadoo ay dardar ku socoto kala hufka ciidanka iyo sare u qaadidda aqoontooda, agabkooda iyo daryeelkooda. waxaa ka mid ah yoolasha aan hiigsanayno kobcinta dhaqaalaha, gaar ahaan dhismaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo muddadii yareedii aan joognay shaqooyin fiican nooga qabsoomeen, annaga oo qorshaynayna in wakhti dhow ay bilaabmaan mashaariic waaweyn oo isugu jira
dhismo iyo dayactir waddooyin halbowle ah, ballaarinta dekedda Boosaaso, dhismaha dekedda Garacad, marsooyin laga hirgeliyo magaalooyinka xeebaha, dhismaha ayraboorka Gaalkacyo iyo mashaariic kale oo halbowle u ah kobaca dhaqaalaha Puntland. waxay dowladdu xoogga saaraysaa sidii ay u horumarin lahayd ganacsiga iyo maalgashiga gudaha iyo dibadda. waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka ugu bishaaraynaynaa in ay Puntland u furan tahay maalgashi iyo kala faa'iidaysiga. iyadoo taa la taabagelinayo ayaanu qabanaynaa shirweynaha maalgashiga Puntland oo dhici doona bartamaha bisha September ee fooda nagu soo haysa. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan kale oo ka mid ah yoolasha aan taabagelinayno adkaynta midnimada iyo wadajirka dadka reer Puntland. Puntland waxaa aasaastay shacab walaalo ah ee gobolladii shanta ahaa iyo degmada Buuhoodle. maanta 21 sano kadib waxay noqdeen 9 gobol oo dhammaantood uu ka hana qaaday hanaanka dowladnimo una gaaray adeegyada kala duwan ee bulshada. waa xaqiiq in gaabis iyo isu dheelitir la'aan dhinaca horumarinta ay jiraan, sababo kasta ha keentee. dowladda aan madaxda ka ahay waxaan ballan qaadaynaa kuna shaqo bilownay inaan cadaalad iyo sinaan ugu adeegno dhammaan bulshada reer Puntland, gobol iyo degmo kasta ha joogaan. si gooniya waxaan xoogga saaraynaa in gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ay helaan difaac, daryeel, horumar dhaqaale iyo arrimo bulsho. waxaan hirgelin doonaa hindise horumarineed oo ku aadan gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn si bulshada gobolladaas u helaan horumarka ay mudan yihiin. waxaan sidoo kale caawa halkan idinka sheegayaa in magaalada taariikhiga ee Taleex iyo caasimadda Puntland sanadkan inta uusan dhammaan la daah furi doono dhismo waddo isku xirta labadaas magaalo, iyadoo dhinaca kalena la daah furi doono waddo kale oo isku xirta degmooyinka Boocame iyo laamiga Laascaano. intaas annagoo wadna ayaa waxaan barbar wadi doonaa tayeynta ciidanka iyo xoreynta deegaanada gacanta dowladda Puntland uga maqan maamulada kaleeto. mudanayaal iyo marwooyin, 21 sano ee ay Puntland jirtay waxaa qorshuhu ahaa bulshaduna ku taamaysay in laga gudbo hanaanka doorasho ee qabaliga ah oo loo gudbo hanaan doorasho dimuqraadi ah oo muwaadin kasta oo Puntland ah dhiibto codkiisa si uu u doorto mas'uulka matalaya iyo madaxda heerarka kala duwan ee maamulka. inkastoo dadaal fara badan lagu bixiyay arrintaas, haddana maysan suurgelin sida aan korna ugu qaadno hamiga iyo hiigsiga dadka reer Puntland. waxaan gaarsiin doonaa dadkeena in ay wakiilada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ku soo doortaan doorasho xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ah. taasi waxay xoojinaysaa dowladnimadeena iyo kalsoonida ka dhaxaysa shacabka, wakiiladooda iyo madaxda sare ee dowladda. waxaan idinku bishaaraynayaa in si dhaqso ah aan ku soo dhisi doono guddiga doorashada Puntland. waxaa naga go'an in Puntland aan gaarsiino hanaan doorasho oo qof iyo cod ah, taasoo kor u qaadaysa dadkuna inay helaan matalaad ay iyagu doorteen. waxaan hubaa in dad badan oo ay ku jiraan dhalinyarada, haweenka iyo cid kasta oo ku dulman nidaamka qabaliga ay heli doonaan fursad lagu doorto. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa mandaqada Puntland ka soo jeeda geesiyaal badan oo u soo halgamay naftoodana u soo huray u dagaalanka xorriyadda, dhismo qaran, adkaynta midnimada Soomaaliyeed. taasi waxay ka tarjumaysaa hadafyadii loo aasaasay Puntland oo ay ka mid ahaayeen ilaalinta wadajir iyo midnimo ummad Soomaaliyeed. welina taas ayay Puntland u taagan tahay. nasiib darro, dagaaladii sokeeye ee 90-meedkii waxay keeneen in la kala irdhoobo lana kala aamin baxo iyadoo dalku ahaa hal magaalo. markii ay duntay dalkii oo dhan baa dumay, dhaqaalahaasi, kaabayaashiisii iyo dowladnimadiisiiba. haddaba si taas xal loogu helo waxaa mar kale la baadigoobay dowladnimadii Soomaaliyeed iyadoo Puntland ay hormuud u ahayd hoggaan iyo shacabba. waxaa xal loo arkay in markaa lagu dhiso nidaamka federaalka maadaama lagu guuldaraystay nidaamkii urursanaa. maanta waxaa inoo dhisan
caasimadda muqdisho oo ka soo kabanaysa lana soo laabanaysa bilicdeedii si kasta oo ay nabadiidku u wiiqaan waxaa jirta ceerigaabo boosaaso laascaanood gaalkacyo cadaada dhuusamareeb beledweyne jowhar baydhabo marka baraawo kismaayo baran garbahaarey hargeysa boorame iyo kuwo kale oo badan waxaa ogtihiin adeegyada maanta ka jira magaalooyinkaas intoodii badan burburkii ka hor kama aysan jirin baasaboorka maanta waxaan filayaa degmooyin badan waa laga qaataa mithaalka u yarooye marka hore waxaasoo dhan waxay ku urursanaayeen caasimadda muqdisho oo keliya sidaa aaweed waa inaynu fursad iyo dadaal gelinnaa sidii si hufan loogu horgelin lahaa loona horumarin lahaa nidaamka federaalka aynu isku afgarannay mudanayaali wuxuu yidhi waxaan diyaar u nahay in aan qaadanno doorkii hormuudnimo ee bulshada ku dhaqan puntland ka qaateen helitaanka xorriyadda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan mar walba diyaar u nahay in aan kaalin mugle ka noqonno dib u dhiska dowladnimada soomaaliyeed taasoo ku dhisan nidaam federaal ah sarraynta sharciga daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka maanta waxaa dheelinaya geedi socodka dhismaha nabadda iyo dowladnimada soomaaliya waxaa jira tabashooyin issoo taraya oo ah in la baalmaray hannaankii gundhiga u ahaa geedi socodkaas oo ay ka mid yihiin federaalka ilaalinta sarraynta sharciga qaybsiga dhaqaalaha magaca soomaaliya lagu helo awood qaybsiga siyaasadda iyo hannaanka dimuqraadiga ah ummadda soomaaliyeed kuma filna halkudhigyo aan waxba u helin iyo carqaladayn maamulada ka dhisan gobollada dalka dalkani wuxuu u baahan yahay in dadkiisa la heshiisiiyo kalsooni iyo is-aaminaadda dadkiisa kor loo qaado siyaasaddiisana lagu wado wadatashi walaalnimo isku tanaasul iyo sidoo kale xoojinta hay-adaha dowladda heerarkooda kala duwan dadka puntland dowladnimadii soomaaliyeed ee ay dhiigga iyo dheecaanka geliyeen ma aqbali karaan in dhibi gaarto mudanayaaliyo marweyn dhinaca kale waxaan walaalaha soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan iyo fikir walba oo ay qabaan u xaqiijinaynaa in aanan marnaba bedelayn ama yaraynayn jacaylkii iyo rabitaankii aan u haynay ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waa marigmadoonto ah in maanta siyaasaddu cakiran in maanta siyaasadda cakiran iyo mudnaansiin la'aanta arrimaha muhiimka ahaa ay dalku u horseydtay nabadgelyo xumo ka jirta goobo badan oo dalka ah waxaa kordhay falalkii argagixiso ee lagu beegsanayay shacabka iyadoo dowladdu kaga jawaabtay waddo xiris taasoo culays badan ku sii noqotay shacabkii dhibanaha ahaa xal amnina aan keenin dhacdooyinkaas xanuunka badan waxaa ugu dambeeyey qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho oo dad badan oo mas-uuliyiin ah lagu laayay kuwo kalena ku dhaawacmeen waxaan naxariista alle u weydiinaynaa intii dhimatay waxaan u tacsiyeenaha eheladii caafimaad buuxa ayaan u rajaynaynaa dadkii ku dhaawacmay mudanayaal iyo marweyne waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed inay mudnaanta siiyaan arrimaha masiiriga ah sida dhammaystirka dastuurka oo wakhti aada u dheer qaatay amniga iyo dhisid cudud ciidan oo astaan qaran soomaaliyeed leh hagaajinta wada shaqaynta ay la leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka wada shaqayntaas oo ku dhisan sharci is-ixtiraam faragelin la'aan iyo wada tashi waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka galmudug iyo jubbaland dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aada u dhaadheer waxaana galay maskax iyo muruq badan maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin huwan ololo siyaasadeed ee waxay u baahan yihiin in lagu taageero baahidooda wixii ay ku filnaan waayeenna wixii ay ku filan yihiinna lagu xurmeeyo waxaan leeyahay ha loo daayo dadka reer jubbaland iyo galmudug inay iyagu go'aansadaan cidda talada ay u dhiibanayaan mudanaya guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen
waxaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ay labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ay ka sugayaan dhammaystirka iyo ilaalinta dastuurka lagu heshiiyey dhammaanteen waajib ayaa inaga saaran ilaalinta sharciyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya diyaar ayaan u nahay in aan idinkala shaqeyno dhammaystirka dastuurka iyo sidii loo heli lahaa hannaan hufan oo ku dhici karto doorasho xalaal ah sanadka 2020 dhinaca kale mudane guddoomiye waxaan kaaga mahadcelinaynaa kuguna bogaadinaynaa mowqifkaaga hoggaanka baarlamaanka federaal ka qaatay samaynta sharciga doorashada oo loo dhan yahay waxaa xusid mudan in arrintaas muddo codsanayn maantase baarlamaanku qaatay go'aanka ku habboon waxaa la wadaagi doonaa talada aan hayno guddiga aad magacowday sida aad sheegtana waxay wadatashi ugu imaan doonaan maamulada dalka ka jira waa muhiim doorasho xalaal ah ku dhacda wakhtigii loogu talagalay mudanayaan iyo marweyne waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inaynu ka wada shaqeyno dowladnimadeenna wadajirkeenna iyo midnimadeenna waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga Soomaali waa Soomaali Soomaaliyana Soomaali baa leh Soomaaliya ha noolaato Puntland ha noolaato Soomaaliya ha israacdo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته